بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم maanta waxaan ka hadlaynaa buugga The 10 Keys for Success tobanka fure ee guusha buuggan waxaa qoray Dr. Ibrahim Al-Fiqi Allah yarxamu daabacadii ugu horeysay buuggan waxaa la daabacay sanadkii 2007 buuggan wuxuu bixinaa sharaxaad guud oo ku saabsan muhiimadda guusha ay leedahay nolosha bini'aadamka Dr. Ibrahim Al-Fiqi wuxuu xusay in guusha aysan ahayn wax iska yimaada amaba wax nasiib ku yimaada balse ay ku xiran tahay shakhsiga qof kasta oo ay ka go'an tahay noloshiisa guul uu gaarsiin karaa haddii uu tala saarto Rabbi subxaanahu wa ta'aala ku tiirsanaado naftiisa uuna la yimaado dadaal badan fikir wanaagsan go'aan sax ah iyo maarayn wanaagsan Dr. Ibrahim Al-Fiqi wuxuu buuggan ku soo bandhigay 10 qodob ama 10 fure oo muhiim u ah guusha qof walba 10kan qodob shakhsi walba waxay ka caawin kartaa inuu gaaro hadafyada uu nolosha ka leeyahay aan si toos ah u bilowno 10 qodob qodobka koowaad الدوافع oo ah dhiirigelinta waa rabitaan xooggan oo ka yimaada gudaha shakhsiga kaasoo ku riixa inuu gaaro hadafyadiisa sidoo kale waa awood maskaxeed iyo dareen ka yimaada gudaha shakhsiga kaasoo ka caawiya inuu sii wado dadaalka iyo horumarka xitaa marka uu la kulmo caqabado iyo dhibaatooyin dhiirigelinta waxay qofka ka caawisaa inuu yeesho hadaf inuu sii wado dadaalka inuu sii wanaajiyo xirfadihiisa inuu ka adkaado caqabadaha inuu horumariyo aqoontiisa iyo inuu noqdo shakhsi karti leh qof kale dhiirigelinta joogtada ah wuxuu u dhow yahay inuu gaaro hadafka uu nolosha ka leeyahay sababtoo ah rabitaankiisa iyo dadaalkiisa ma ahan kuwa dhammaad leh ayagaana u horseedaya inuu gaaro guusha uu rabo qodobka labaad الطاقة ama tamarta waa shay aad muhiim u ah oo uu shakhsi walba u baahan yahay si uu u qabsado howlaha nolol maalmeedkiisa tamartu waxay ka timaadaa laba dhinac tamar ka timaada jirka physical energy waa awoodda jirka ee qofka ka caawisa inuu shaqeeyo inuu socdo oo uu dadaal badan sameeyo tamarta jirka waxay ka timaadaa cuntada caafimaadka leh hurdada kugu filan iyo jimicsi joogto ah tamar ka timaada maskaxda mental energy tamartan waa awood qofka uu yeesho inuu wax diiradda saaro inuu wax barto inuu fikir cusub uu la yimaado sidoo kale oo ka adkaado caqabadaha iyo niyadjabka si qofka uu guulaysto waxaa lama huraan ah inuu leeyahay tamar ku filan marka uu shakhsiga leeyahay tamar ku filan wuxuu dareemaa firfircooni iyo karti uu wax walba ku qabsan karo tamar la'aanta shakhsiga waxay u horseedi kartaa daal niyadjab iyo hoos u dhac ku yimaada waxqabadka qofka sidaas darteed waxaa muhiim ah in shakhsiga uu helo nasasho ku filan cunto nafaqo leh iyo jabi dhiirigelinaya si tamartiisa u ahaato mid joogto ah qodobka saddexaad almahaara ama xirfad haddii aad rabto inaad gaarto guul waa inaad yeelataa xirfad gaar ah oo aad ku shaqaysan karto xirfaduhu waxay u qaybsamaan laba nooca koowaad xirfadaha farsamada technical skills kuwani waa xirfado aad si toos ah ugu adeegsan karto shaqadaada sida xirfadaha kombiyuutarka iyo tiknoolajiyada xirfadaha farsamada gacanta sida dhismaha iyo dayactirka guryaha xiridda iyo cilad bixinta korontada xiridda soolarada hagaajinta gawaarida samaynta agabka guryaha la dhigto sida sariiraha iyo fadhiga iyo wixii la midka ah xirfadaha ganacsiga iyo maamulka xirfadaha xisaabta iyo falanqaynta xogta xirfadaha farshaxanka iyo hal-abuurka iyo wixii soo raaca labo xirfadaha soft skillska kuwani waa xirfado la xiriira sidaad ula dhaqmi lahayd dadka iyo sida aad u maarayn lahayd naftaada tusaale xirfadda hogaaminta shaqaalaha xirfadda xalinta dhibaatooyinka xirfadda maaraynta waqtiga iyo xirfadda isgaarsiinta iyo la hadalka dadka kale marka si aad u gaarto hadafkaad nolosha ka leedahay waa inaad si joogto ah u horumarisaa xirfadahaaga aadna barataa xirfado cusub si aad ula jaanqaaddo isbeddelka dunida qodobka afaraad التصور الإيجابي ama fikirka saxan buuggan wuxuu kugu adkeynayaa muhiimadda ay leedahay inaad maskaxdaada ka ilaaliso fikradaha qaldan sababtoo ah fikradaha qaldan waxay kugu ridayaan waddo qaldan hadhowna waxaa kugu adkaan doonta inaad dib ugu soo laabato sidaa darteed haddii aad rajaynayso in hadafyada noloshaad ka leedahay aad xaqiijiso waxaad isku daydaa inaad qaadato fikradaha saxan qodobka afaraad waa action ama ficil inaad hadaf dejisato waa shay muhiim ah laakiin dejinta hadaf oo aan ficil la socon natiijo laguma gaaro marka aad dejisato qorshe sax ah waxaa muhiim ah inaad qorshahaas u beddesho ficil si aad u gaarto horumarkaad hiigsanayso Dr. Ibrahim Al-Fiqi Allah yarxamu buuggan wuxuu ku sharxay hababka ugu fiican ee hadafyada aad degsatay ficil ugu beddeli lahayd
qodobka lixaad alistimaac wa fahm alaakhariin dhagaysiga iyo fahamka dadka kale. Dhagaysiga iyo fahamka hadalka dadka kale waa xirfad muhiim ah oo kuu suurtagelinaysa inaad xiriir wanaagsan aad la yeelato dadka kugu xiran. Markaad si dhab ah u dhagaysato oo aad u fahanto waxay dadka kale kuu sheegayaan, dadka kula hadlaya waxay dareemayaan inaad qiimaynayso. Halkaasna waxaa ka dhalanaya isfahan, kalsooni iyo xiriir wanaagsan. Sidoo kale adiga markaad dadka kale la hadlayso, hadalkaaga ha ahaado mid waadix ah, degan oo la fahmi karo. Xushmadna u muuji dadkaad la hadlayso, waxaadna ka fogaataa muranka aan micno lahayn. Intaas haddii aad samayso waxaad dhisan doontaa xiriir wanaagsan oo waxtar leh. Qodobka toddobaad leadership ama hoggaaminta. Hoggaaminta waa kartida qofka uu leeyahay inuu hago koox ama bulsho isagoo tusinaya jidka saxda ah ee ku horumari karaan. Hoggaamiyaha wanaagsan waa midka dadka kale ku abuura kalsooni una horseeda inay sameeyaan isbeddel wanaagsan. qodobka sideedaad almuruuna tabacsanaan ama dulqaad. nolosha bini'aadamka waa isbedbedeshaa. maanta haddii aad farxaddaad haysato ama aad faraxsan tahay, biri waxaa suurtagal ah inay murugo kula soo deristo. maanta haddii aad guulaysato, biri waxaa suurtagal ah inaad guuldaraysato. waxaasoo dhan waa wax iska dabiici ah oo nolosha ku dhisan. marka waxaa lama huraan ah inaad awood u yeelato inaad la jaan qaaddo isbedbedelka ka dhaca nolosha. qodobka sagaalaad as-sabr ama sabarka. guusha ma timaado hal mar. guusha waxay u baahan tahay sabar, dulqaad iyo dadaal badan. marka haddii aad maanta hadafyadaada xaqiijin weyso, hanyajabin. beri insha allahu tacaala waad xaqiijin doontaa. dadka guulaystay waa dad soo dhibtooday, waana ku soo sabray helidda guushooda. qodobka tobanaad التوكل على الله سبحانه وتعالى. توكلku waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad tala saarato, kadibna aad dadaal badan samayso, natiijadana aad rabbi subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka sugto. intaas waxay ahaayeen 10 qodob ama 10 furo oo qoraaga buuggiisa ugu hadlay. haddana waxaan ka hadlaynaa muhiimadda buugga iyo fikirka uu xambaarsan yahay buuggan. buuggan wuxuu xambaarsan yahay fikradaha soo socda. 1. shakhsiga inuu ku dadaalo inuu horumariyo naftiisa asagoo u maraya fikir wanaagsan iyo ficil saxan. 2. sida loo dhiso caadooyin wanaagsan oo ku horseedi kara guushaad rabto inaad gaarto. 3. sida loo kobciyo maskaxda iyo awoodda shakhsiga. 4. sida uu qofka ugu adkaan karo caqabadaha nolosha. Dr. Ibrahim al-Fiqi buuggan wuxuu si weyn ugu adkeeyey in guusha ay tahay wax uu qof walba gaari karo haddii uu la yimaado hal abuur, aragti fog, dadaal joogto ah, fikir saxan iyo dulqaad iyo adkaysi. gebagabadii buuggan wuxuu bixinayaa talooyin uu qof walba noloshiisa ku horumarin karo. sidoo kale buuggan wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay qof walba oo raba inuu gaaro horumar shakhsiyadeed iyo mid xirfadeed intaba. Asalaamu calaykum.